horta adoog rifrif kala hay ee taram la dhahayo ma waalayay war Abdullah lan ku sugaa waali aafimaadan dhahay warnoosi Abdullah taram waxa tarabta ka sheeg dal dimuqraadi madax ka yahay laakiin Kim Jong-un ha isku aadin halkan taala lagu dhufaa miya ka wada war Jim Kunka la sheego horta corona ma ku dhacay war qof kasto corona uu ku dhaca wala toogtaa meeshaas aryaanaha warka hayga qasina hal ay degansado adoogu mugow leeyahay Soomaaliya dawladu kama jirto haw noogu soo diray safiirka dollar mooto la leeyahay aw sanoogu soo diray kana uu ku soo bedelo la leeyahay la ri'at waq taram waxaan u malaynayaa afkiisa iyo dhagihiisu inay ismaqal wallahi dad badan cudurkaas la qaba ma dhareeha xaman uriya anigu dadka Ameerika jooga waxaan dhihi lahay odaygu ma fayaabe amba dhajis laga gub amba humbeel ha laga shido amba mindhir jururuqow ha laga sarsaro amba saar ha laga tumo amba mingis ha laga kordheelo amba dhiig cadaa hayse dhiig ya uu sala geliyo amba geed ha lagu xiro adduunka oo heefidnayhaahe Abdullah Barfsor Yahya Amir wuxuu yiri waa ka xog badan yahay waa ka xoolo badan yahay xaqaaga loogama aamusay dawladan yahay la aamusan tahay xitaa cambaarayntii ma gabtay aryaa Barfsor Yahya ma wawsan ogeyn doqoniyaan lagaaga darin inay u dagaal laadahay war dhudhunkaadan jibii korn wal shumaya leeray ha taram ma hadsanidna erwaayna dawladtaana war taram waa laga gardaran yahay sababtoo ah Ilhaan Umar halkaas dhuunta ay odaga u gashay hadeerna waa maqlaysaan oo Abdullah ugu darsoomay war taram nin la yaabay wuxuu yiri Ameerika odagii xukumay oo aan shaxaliitay amuraha ka jira caalamka iyo dib iyo aafaadka Ilhaana isaga uga darayd ugana eel dheere inantii yarayd buuduqi kaleeya warnimada Abwaanguura wuxuu yiri ubadka soo koraayay odaygii daaweyn jira kii asluubta xumaato aflagaado la taagan u shaale isku baraayay iska celi Ilhaanay war odagu waa kuwa shil dhibaanado meeshu tago wuxuu leeyahay representative Umar American collapse aryaadaha waxa kale la yiri asaasaqa taram iyo eeynigiisa oo kale anshax laga masugaye iska celi Ilhaanay war wali kale leeray odaygii duqoobeena eeb uurka buuxiyo inanka ma xishooda iska celi Ilhaanay war intaas looguma siman waxa kale Ilhaan la yiri eraydaad ku tiri baa ku noqdeen inkaaro sharciga iyo afkaaga duqa uga adkaatay iska celi Ilhaanay war gaboga intaas kuma ekeen waxa kale la yiri eediyo dhaliilaha uga abayeeline oo faa ku sii gooy oday aan xishoonayna la doori weeye iska celi Ilhaanay war intaas kuma ekeen waxa kale la yiri mid kalena ogeysi asalkaad ka dhalatiyo Soomaali abidkeed aabiga ma yeeshe iska celi Ilhaanay anna waxaan ku darayaa waa yeelkii edab daran ee inan faduuliya afka laga kobay jiray ee iska celi Ilhaanay waraa wuxuu aragti caalamiya ma ahane waa hiil cad iyo qabiyaalad iyo wixii Soomaali indhahaas u yeelay war kalamaana geega dorsateena musaafira muqiimka dirawnaga tag ma aha horta madeeyo geeg hadla tira bariga show geel la'aan Allah ku dhige war dad waalnaatiin gabadha marti ay ku tahay Mareykanka odiga ku dirina war waa dhunsan tahay Mareykanka marti laga ma noqday waa loo simay war nimayow geedkan kalamaan waa la yaabay hatta taageeraasha Donald Trump waa laga helaa aryaadaha Ameerika qofba maray timid cid gaar u lehino ma jirto taramna dadka kama xigiyo asalkiisa hore Faransiiska ka yimida la yiri hadda dadkiisa dhinaca ka raaco war taram Mexican oo dadku necbiyo hooyadiisana ka dhalataa la yiri marka nin abtiyaasha iska xisho waay miya Ilhaan ka xishoona warnimada waxa la yiri hashi ninku ran soo hooyo dhinacna uma fayooba waxaan uga jeedaa toddobaadkii xurriyadda lagu jira xaafadaha qaarna waxa lagu amray inay calankii Soomaaliya guryaha ku xirtaan habeenkii marka la gaarana qoladii kale inta ku soo dheelmato ayay waxay leeyihiin guriga aan ku aragna calanka Soomaaliya cidii ku xirata ayaday u taalaa murtadiina noo qoonsanayna anigu waxaan la yaabanahay qolada calanka Soomaaliya diidaysa ma xurriyadda Soomaaliya inkirsan yihiin war Soomaalida dhan inkirsan yihiin dhulkana lama kala leeyihiin aryaadaha dadkan Muqdisho jooga ee baagoo dhibaato haysa minay qolana maalintii amar sii hayso qolana cawadee amar sii hayso war anigu waxaan maqli jiray Soomaali diido silic u dhimo waa ka sabrayna silic u dhimo warnimada waxa la soo qoray erayadii gumeystay Talyaaniga nooga tagay ee af Soomaaliga ku biiray aryaadaha awr kasta ninka rari jiray wax uunba ka reebaa oo hadda ma dhaxal Talyaani isticmaalna war bil fagoor ma kamid wax Talyaani nooga tagay war kumanaan erayo ka tagay warkayga dhageysta Bakeeri Fasaleti Lamayeri Luuji
lujito borso atore filo abosto abucato ascendo arbitro albergo aiuto atarisho affare alculiste bundo bolbare badil bosteggio biasheri baco baloli bambire bistolat bateri dobio dolsho farmaggio faturat forno fiore fargheto filo farmacie fodari festo scoragno scalcio sbartivo stachin scobe sbatini scabolo sbatore sbarmuto gesto ciao giaco giallo giardin giro lugito latico lasativo nastoro nafto cataban clienti coberto calciro cartero cabrale carico cavalieri casaieri corrieri kerani rigore rubanetto wekio wershe shukuman shanemo shinyer shaminto tarafico tibisho tarufo torno iyo kuwa kala badan wararadu tagaanigu ka tagay oo aad noo soo tirisay kontrabandira maxay ugu dari weysay kontrabaaga intee looga tagaa waranu waxaan la yaabanahay erayada Talyaani 60 sano ka hor nooga tagay madaxweynahan 3 sano ka hor dooranay maxaa magaciisa ku daray war dadka erayadan inta soo qoray magacii madaxweynaheena ku soo daray waa wada qaran dumis miiran alloora kuwaastu kuwan katiib way aan la jeede aryaadaha anigu af Talyaani Soomaaliyeed idin kula warramay dhegensada barigoha anu istaraadada khamiinaaray haay aan qobanana jaal biyeediga saaray asay ila sheelaraysa asan fiyaangada baastada ka naqday una doona igu riidaraysa asan wardaareey asan iri altravolta dad igu riidarayso teestada butilyo waa torobaaray haysa abdullah nakatiba ma ku soo baxday war inta soo eray oo Soomaaliyo haduu Talyaaniga noo tagay soo walaalaman Talyaaniga war walaalaman Soomaaliga dhamo raba inuu naga nidaam guuriyo laakiin waa ka did war wadaado waayele hada koriyada kobli guridaas lan Talyaani en kooy come fashiamo yeri kobli guride warti come indiamo wari ideega karsade warti barka yeri waa baloodan roonyarti sidaawhe war intii Talyaanigu ka tagay waa sheegteen Ingiriisku inta nooga tagay war intaas gaboosa maanta la maqnaaday asaga laga rabaa inuu keeno war intii carabtu nooga tagtay aryaadaha af Carabigu waa kan ugu badan af Soomaaliga ku jira hadii xisaabta lagu soo daro xaaba noo heraahe war af Carabiga afgalaad ma afka kiidana ku mid eeyo warnimada Soomaalidu jaamacadda carabta inay ka bixi rabtaan u maleeyay sababtoo go'aankii ka soo baxay jaamacadda carabta oo wiiga Niil ku saabsanaa Masar lagu taageeray Soomaaliya ee Djibouti waa diideen wasiirka arrimaha dibadda Cawadna wuxuu yiri wiiga Niil wadamada uu quseeyo wada hadal ku dhamaysteen war wasiir Cawad wuxuu kala yiri halka wiiga Niil gudi aan anagu ka midnahay Allah xil saaro war wasiir Cawad wuxuu kala yiri Itoobiya waa dal saaxiib aan nahay darasna aananahay war markoodan inay hor joogsano diyaar u manihin warka wasiir Cawad inuu Itoobiya u eexanayo Masarna fogeynayo ma idin leegiya waranu Cawad aan la qabaaho Masar waayaan nama siinin xakiim xayaatu Soomaal wal mawt al habash aryaadaha anigu waxaan dhihi lahay nima hadda ka hor wuxuu yiri digtoona ma darandoorima oo dibu jeesama xaad ku diidamay dhihi karteen xabadaanan ku dheefayno yiri warkaasi waa askari amar diiday waana dambiile orodhay Masar iyo Itoobiya minaad wax ka dheefayso waa kuwaas ka gurbi wardadii baarlamaanka ee maqaanka Muqdisho hayehe ma la isku mari waayay war matalaadan laga hadlayo waxa ka horeeya maqaamkii meel ma la saaray mase waa la iska matalaya war xildhibaano boqol ka badan mooshin keenaya la yiriye maxaa ka soo baxay haye yaa la ridayaa la yiri horta markii mooshin la sheegay madaxda wadnuhu kurug ma yiri war madax mooshin kuna haas amaaninka damboyti waran ay gaashan lan suubsaday walaagas yaa mooyaha bariga la keenay Muqdisho loogu danayhaaho xubnaha aqalka sare ay ku yeelahayso toman saddex laga dhigaa la yiri war waati lagu heshiiyay Muqdisho in lagu doorto xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland dadkuna meeshii lagu doortay matalaan marka Muqdisho matalaad badana war kuwaas muka dooramayaane nawa doorahay naw halka laga keenay markii laabtaan soo la xirima war ma haysin afartii xeer maalmahan baarlamaanku ka dooday gudoomiye Cabdi Xaashi wuxuu been abuur waay gudiga isku dhafka ahayna waxay soo diyaariyeen ma aha haye ma la xada kii la isla soo diyaariyay gudoomiye Cabdi Xaashina wuxuu yiri waxa baarlamaanka dooday
boodaya waa sharci darro guddiga doorashadana waxaan ugu baaqayaa inaysan u hoggaansamin wixii ka soo baxa meeshaas doorashana aysan ku qaban warwar ma haysiin nabadii nool ayaamahan waxay sawirkiisa wareejinaysaa wiil yaroo la yidhaahdo senatar ayuub waxayna dhaheen xoogga waddaniyiintu cabdi xaashi wiilkaana lagu beddelaya war xoogga waddaniyiintu halkii waa yeela dalka u haray miyay wiil yar ku beddeli rabaan dhallinyaradu waa milkiilayaasha dalka war wiilka baylaa wato lacaguna waa ag taallaa war wiilka yaroo la wareejinayo ra'iisul wasaare ku-xigeenku sawir la soo galay war guddoomiyaha xisbiga weyne nabadii nool miyaa wiilka wada aryadhaha anigu waxaan gara waaye cabdi xaashi waddani maaha oo waxgarad maaha oo wanaag ma wado dadka raba inay soomaali ka raaridaan mahay waxgey doonaan cabdulla maxaad ula yaabaysaa dadkii ka dhaadhiciyey jawaari aan dastuurka waxba ka aqoon dadkan meeshay rabaan inay waxgey karaane war 4 sano qardajeex hadday ku dhammaato talow 4 kale maxay noqon doontaa goormaan ladnaanaye lixdankii lugooyadii nadaysaye 26 juun war taliyihii ciidanka dhulka waxaa laga dhigaa layidhi taliyaha ciidanka badda marka waxaan la yaabanahay hadduu dhulkii wax ka qaban waayo ma badda wax ka qabanaya war taliyihii ciidanka baddaba taliyaha ciidanka dhulkaa laga dhiga aryadhaha ninka wadaanta bixi waaye wuxuu yidhi bal shabanshabana ku day war taliyaha badda loo magacaabay ma kaluunuu soo dabaa kan horay taliyaha badda u ahaa ma shabaabuu soo qabqabaa war waxaa la yidhi xaabada ninkii soo gurguray xooggana u waayey oo xayn ku sii biirsadow tala xumaanta war guddoomiyaha baarlamaanka galmudug wuxuu yidhi shirkii guddoomiye cabdi xaashi ku baaqay annaga nama quseeyo ee dalabkii madaxweyne farmaajoana quseeyey kaasaana hoggaansamayna waraadhe guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaanta wuxuu xamar u jooga ma intaasay ahayd maya dayniiloo booqday warwar ma haysiina degmada dayniile waxay tidhi dalxiiska muqdisho annagaa bilownay degmooyinka kalena waa naga masayreen allaahu akbar run lama sheego beerta nabadda maa dayniila bilowday mindhaa xeebta dayniila bilowda warkaxdaba waxay tidhi dalxiiska muqdisho annagaa hadda ugu wadanna war ha la yaabina soomaalidu waa isku waalatay qorqoor wuxuu yidhi mooska gaalkacay ka soo baxo afgoonu u iibgeynaynaa war wasiir fiqiyo gacan moosa sita shalay wuxuu yidhi xildhibaan dalxa mooskan hadiyadda ah laga gaarsiiyo war xildhibaan dalha may baarey moosi gaalkacay laha iinku dhiibi may antisa liyaabay